daawada qaybtan waa qaybta saddexaad oo wararkii wacali dhinaca dulasiyada waa 17 Maarso wararka istaba joogga iyo warbixinaha waaweyn daawada shaqimo hale farkamo qadna xanuunka coronavirus ugu daraado iyo warar kale daawadayaal oo iyaguna lixaad leh oo runtii daawadayaal shaqimo hale u muuqda marka dambaysa inay wararku soo tarayaan kolka ay noqoto xaaladaha ka taagan dalka Mareykanka iyo dunida oo dhan daawada shaqimo hale dalalka Britain iyo qoyga Ireland iyaguna waxa ay ka digayaan in xanuunku uu sii faafo ra'iisul Britain Boris Johnson ayaa sheegay in hadii talaabooyinka la isku raaci waayo ay noqon karaan in dalka aan xaaladdiisa waxa laga qaban iyadoo goor sii horeysana oo daras la sameeyay uu sheegay in laga yaabo in dalkaasi dadkiisa 20% ay isbitaal galaan taasoo ka dhigan ayaa la yiri in masiibo ay ku soo aadan tahay dalkaasi dhanka kalena gobollo badan oo Mareykan ayaa muqaayadihi la fasaxay gobolka Kentucky ayaa governatorahooda Andy Bishir uu ugu dambeeyay dadkii xidhay muqaayadaha cuntooyinka goobaha baararka iyo goob kasta la isugu yimaado waxaana la sheegay in tan ay ka dhigan tahay in laga hortago xanuunkan sida weyn u faafaya dadka xanuunku soo ridanaya caanka ayaa iyaguna sii badanaya iyadoo uu mid kamid ah atoorayaasha la yiraahdo ama atooraha caanka soo dhigay filimkii loo yaqaan Game of Thrones ninka la yiraahdo Christopher Hivju uu haatan sheegay inuu xanuunka ku dhawaaqay ama xanuunka coronavirus uu soo ritay Hivju wuxuu sheegay in calaamado weyn ay ka soo baxeen isagoo dalka Norway ku sugan ayuu wuxuu sheegay in uu haatan guri isku xidhay sida daradeedna uu aaminsan yahay in dad isaga kaliya taay jireen wararka ugu dambeeyana daawasha qiimaha leh in badan waxyaalaha inta badan caalamka ama dadka islaamka doodaha faraha badan ay kala doodaan dad yoga kale ama ay kala doodi karaan dadka isku ardayda tiin hada jaamacad aaday mararka qaarkood ama marmarka qaarkood ay biciidsadaan waxa kamid ah nadaafada dhinaca isticmaalka musqusha iyo habka muslimku uu isticmaalo ama si kale hadii loo dhaxba istijada taasi waxa ay mararka qaarkood ay dadka aan diinta islaamka aaminsanayn ay u arkaan arin aad u liidata ama arin aad u xun way liidaan oo waxay aaminsan yihiin dadkaas in ay yihiin dad markaasi ayagu wasaqti isku sii badiyay inkastoo doodo scientific ah oo dhinaca markaasi science-ka iyo kuwa dhaxdhaxaadaba ay qeexeen in caafimaadka ugu badan uu taa ku jiro ayaa hadeerto dan waxay biday in gobol kamid ah gobolka Mareykanka iyo guud ahaan dadka Mareykanka loogu baaqay inay isjoodaan dad badanna waxa Brian oo sheegayeen in weysadu ay dawo u tahay ka hortagga xanuunkan weysadu dawo inay u tahay xanuun ama macnaha nadaafada un baa loola jeeday bayla tahay laakiinse runtii weysada xilliyo badan baa u dhaxeeya lama oran karo weysadu waxay dawo u tahay xanuunkan laakiin waxa la oran karaa nadaafada ay qayb ka tahay haatanse magaalada Newport leeyahay gobolka Oregon ayaa waxa ka dhacay markaas dhacdooyin yaab leh oo runtii aad iyo aad u dhibay booliska gobolkaasi lambarka 911 loo yaqaan ama 911 ee xaaladaha degdeg ee dalka Mareykanka ayaa dadkii waxay ku soo weerariyeen ayagoo dalbanaya in loo keeno ama ay ka dhamaato gabaabsi ku tahay marada markaasi tissue-ga loo yaqaano ee musqulaha loo isticmaalo ama bacda yar ee musqulaha loo isticmaalo ee la isku nadiifiyo oo ay leeyihiin marihii wanaga dhamaadeen magaaladiina way xiran tahay qayb ahaan sida daradeed waxaan u baahannahay oo aan tabcaan u nahno inaanu helno ayaa la yiri markaasi warqadaas loo isticmaalayo ama tissue-gaas loo isticmaalayo musqusha booliska ayaa se arintii inay saas u dhacday ila lama ogaadeen hadii kale war qoraal ka soo saaray waxayna yiraahdeen ma aamini karno xitaa in aanu weyn aad bay noogu adkaatay inaanu aamino inaanu ka hadalno arintan isla markaana aanu soo dhigno bartanada Facebook ayagoo soo raaciyay sawir muujinaya kartoonkii ay ka dhamaatay maradaas yar oo ay soo dhigeen bartooda Facebook ah magaalada Newport ee waaxda booliska ay ku leedahay Facebook waxayna soo jeediyeen talooyin yaab leh waxay yiraahdeen horta marka horeysa waxaan ka xunnaa inaan arinta wax ka qaban karin maadaama aad leedihiin waraaqihii musqusha loo isticmaali jiray ayaa naga ilaaday oo aanu dhamaysanay sida daradeed tan waxaad badbaadi kartaan idigoo tan aan haysan waxaad sameeyay kartaan talaabooyin dhowr horta marka u horeysa waxa la dunidu ma aysan haysan jirin waagi horeba baa lagu yiri iyadoo la xasuusinayo in waayo adduunku soo wada maray ma aysan jirin ayaa waxa jiri jirtay baa la waqti ayna haysan jirin baash maxaa la isticmaali jiray qoryo ayaa la isticmaali jiray ama waxa la isticmaali jiray ciid ayaa la yiri laakiin hadda waxa sahla baa la yiri waxaad isticmaashaan biyo ku dara cusbo kadibna isticmaala ayaa lagu yiri haddaad biyaha isticmaashaan kadibna aad gacmihiina dhaqataan oo aad maalintii dhowr jeer isticmaashaan waxay kor u qaadaysaa nadaafadiina waxaana leeyahay kula talinayaa sidaas haddii aad joogto gobolada kale Mareykanka iyo dalka kale Mareykanka taariikhdu isma diiday waa sida warka loo qoray waxaa la idinka rabaa in aad isticmaashaan biyaha
cusbo yar ku dara kadibna biyaha isticmaala ayaa lagu yiri oo istijooda weeye macnaheedu marka la eego oo ku nadiifiya meelihiina gaarka jirkiina gaarka ah ee aad doonaysan inaad nadiifsataan ayaa lagu yiri waxaan marka la idinka doonaynaa ayaa la yiri anagoo idin ixtiraamana in aad biyaha isticmaasha baa 4-5 jeer lagu celiyay waxaad moodaa in la faray istijadiisa rasmi ah waxaana taasi muujinaysaa in ay nadaafada qaabka islaamku inoo baray ay ahayd qaabkii ugu wanaagsanaa ee runtii cid loo bari kari lahaa ama aadana loo bari kari lahaa dabaasha qiimaha leh halkaad nagala socotaan waa wararkii wacalaha dhinaca diblomaasiyadda caalamka oo dhan dalka Filibiinna 57 milyan oo ku dhaqan jasiirad kamid ah jasiiradaha dalkaasi ayaa la xaydaaba oo iyagana la xayiray sida uu sheegayo madaxweynaha ka kan ee dalkaasi ee awalba asagu dalkaasi ka waday dagaalka dhinaca daroogada iyo dagaalankeeda ayaa haatan waxa uu soo saaray awaamiir iyo talaabooyin adag oo uu sheegayo in saas la sameeyo waxa uu madaxweyne Rodrigo Duterte uu sheegay in jasiiradda la yiraahdo Luzon ay tahay ayuu yiri ilaa iyo inta la gaarayo 12 bisha Abriil ama bisha Dame in aysan cidna ka soo bixi karin cidna aysan gali karin waxa kaliya ee banaanka loogu bixi kara gurigana ay tahay inaad u socoto meel dukaanada wax ka soo iibsanayso iyo dukaanada cunto ka soo iibsanayso labada albaab kaliya ka furnaa doona jasiiradaas oo 57 milyan oo qof ku dhaqan yihiin dawladdu waxay sidoo kale caawin doontaa dadka ka caawin doontaa dhinaca dawooyinka iyo cuntooyinka ayuu yiri ayadoo qofkii uu gabaabsi ka noqdo shaqo intuu aad waayo lacag aan haysadiida waxa loo soo diri doonaa taageero dhinacaas ayuu sheegay isagoo ku amray waaxda tabarucaadka ee dalka ee shaqada iyo shaqaalaha in ay arintaasi fududeyso oo dadka u ogolaato in ay taa ka taageerto gabi ahaanba jasiiradda Luzon ama jasiiradaha Luzon iyo magaalooyinkeeda waa ay xanibay yihiin wana xadidan yihiin ayaa lagu yiri warka qoraalka la soo saaray dabaasha qiimaha leh huuna war qoraal hadda soo saartay waxay ugu baaqday dadka dunida oo dhan in qof kasta xanuunka looga shakiyo aan laga labalabayn in la baaro ama la xayiro waxay sheegeen in ay taasi tahay ka hortagga ugu wanaagsan la sameeyo karo dalalka xanuunka dadka ay uga shakiyaan uu soo gaaro waxaan ugu baaqanaa in xanuunka qofka uga shakidaan la xayiro marka ugu horeysa la baaro marka ugu horeysa marka xigtana hadii uu shakiga meesha uu ka yimid ayadoo la eegayo uu sii bato markaas loo qabto maalmo 14 ah oo uu sii joogo ayaa lagu yiri sidaas waxay ka sheegtay uu ku sheegtay barnaamij ay ku qabatay magaalada Geneva ay inta badan xarunta u ah iyada ay fadhiyaan xarumaheeda dalka Tunisia waxa uu goroweyta isaguna soo saaray inuu laalay dhammaan duulimaadyada caalamka ka bixitaan iyo soo galitaan sidoo kale wuxuu dalku laalay ama uu albaabada isugu dhuftay xuduudaha uu leeyahay oo dhan iyagoo xiray ra'iisul wasaaraha dalka ayaa toos uga hadlay warbaahinta isla markaana shacabkiisa la hadlay Ilyas Fakfak waxa uu sheegay in dalka waqooyiga ku yaala Afrika uu sidaas u yaalay in uu ka hortago xanuun waxa sidoo kale la mamnuucay isku imaanshaha dadka haday tahay meelaha wadaroodada la isugu yimaado masaajidada ayaa la mamnuucay macnaha lama mamnuucin waa la laalay waa la joojiyay si ku meel gaar ah dabaasha qiimaha leh taas ugu habboon baan maranaya sidoo kale waxa la mamnuucay ayagana ama la joojiyay goobaha ciyaaraha dadweynuhu isugu yimaado suuqyada laga dukaamaysta sida wadarta goobaha ganacsiga kaliya ayaa la ogolaaday sidoo kale waxa hoos loo dhigay saacadaha shaqada si loo yareeyo dadku inay isku neefsadaan waxaana laga dhigay 5 saacadood maalintii oo dhan in shaqada laga dhigo isku soo baxyada dhinaca dhaqanka ayaa sidoo kale la yareeyay dalka Turkiga isaguna waxa uu ku dhawaaqay go'aan culus oo ku saabsan qadiyada iyo raadinta dadkii aynu dhawaan taariikhdooda ka sheekeynay taatariski muslimiinta ah ee laga farmaroojiyay labada jeer gobolkii la xaday ayaa la yiraahdaa ama jasiiradii badda madow ee la xaday dadkii badda madow iska lahaa weey ee muslimiinta ah ayaa waxa ay sheegeen in aysan aqoonsanayn una arkaan gef iyo ulakac ka dhana sharciga caalamiga ayay yiraahdeen iyo barakicin lagu hayo dadka muslimiinta ee taatariska loo yaqaan ama taatarka oo ay sheegeen in gobolka Crimea iyo jasiiradda Crimea ay leeyihiin wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Turkiga ayaa ku soo beegtay warbixintan ama ujeedka lagu soo beegay ayadoo Russia ay u dabaaldegayso guuradii xilligii ay ka farmaroojisay Ukraine gobolkaasi sanadkii 2014 ma aha Turkiga mana aha international community-ga kuwa aqoonsan doona qaadashada gobolka Crimea oo ka tirsan jamhuuriyadda ayaa la yiri Ukraine Russia Federation ama dawladda federaalka Russia waxa ay samaysay codayn iyo afti sharci darro taasoo 6 sano ka hor ay go'aansatay maanta oo kale ayaa lagu yiri warka qoraalka wasaaradda arrimaha dibadda ay soo saartay waxaan sii wadi doonaa in aanu xoog iyagoo dhasaarno in dadkii Crimeanka ee Tatarka ahaa ay yihiin kuwa dalka iskale iyo gobolka iskale waxa la mamnuucay sida ogtihiin dadkaasi in luqadooda laga mamnuucay TV-yada iyo iskuulada kadib markay iyagu ay soo dhaweeyay diideen
ama diiday inay soo dhaweeyaan qaadashada gobolka kadib markii ay xilligii Joseph Nicola jiray Stalin uu isagu dadkaasi u barakiciyay oo dadkaasi u barakiciyay una ceyriyay dalka loo yaqaan hadda Pakistan laakiin dadka ayaa dib u soo noqday markii uu burburay midowgii Soviet oo sanadka 1990 ayaa dadka muslimiinta isku soo abaabuleen haatan dadka ayaa ku kala yaacsan dalweynaha Ukraine qaar kamid ah Turki bay joogaan kuwa kale Pakistan bay ku noqdeen kuwa kale waxay haysta ku yihiin Crimea sida ay sheegayso warbixinta Turkiga soo saartay waxay dunida oo dhan ugu baaqday in gobolkaasi uu noqdo gobol loo aqoonsado in dadkii iska lahaa dib loogu celiyo mustaqbalka dhow oo la jeedo dadka muslimiinta ee asalka u lahaa waxaana loo yaqaanaa gobolkii labada jeer la xaday ama labada jeer la dhacay halkaad nagala socotaan daawadayaal waa wararkii wacala dhinaca diblomaasiyadda caalamka oo dhan qodobka ugu dambeeya daawasha qiimaha leh ee xanuunkan coronavirus-ka ayaan kusoo koobanaa oo isagu marba marka dambaysa daawasha qiimaha leh saad ogtiin inuu soo taraayo ama uu marba marka dambaysa soo badanayo qodobkan waxaa weeye magaalada Los Angeles ee dalka Mareykanka ayaa waxay ku dhawaaqday gudoomiyahooda ninka duqa magaalada Los Angeles magaalooyinka ugu weyn dalka Mareykanka in aan haba yaraatee dadka la sii doonin wax tigid ah oo dhinaca parking ah tigidhka waxa weeye ganaaxa la siiyo baa laga wadaa dadku markay parking khaldan dhigtaan waayo waxa laga yaabaa dadku inay cararayaan oo ay doonayaan alaab markii la soo cararaan kadibna meesha ka carara ay ka baxaan sidaa daraadeed tigidh laguma saarayo gaariga ama haddaad Los Angeles joogto waxaana saa ku dhawaaqay Eric Garcetti wuxuuna sheegay in arrimahan ay ka mid yihiin arrimaha jeer dhaafka ee dadka loo sameynayo qodobkan waxaan uga jeedaa daawasha qiimaha mar kale inaan dadka Soomaaliyeed ganacsatada ugu baaqo sida la sheegayo magaalada Xamar iyo magaalooyinka kale waxaa wariid laga dhigay ama la qaaliyeeyay alaabaha yaryar ee dareeraha ee gacanta la marsado ee virus ka hortaga alaabahaasi adduunka kuma yaraanin aad baana loo soo saaraya sabab aad u qaaliyeysid meesha maba taalo sabab aad u iibiso way taala laakiin sabab aad u qaaliyeyso ma taalo dadkaaga inaad u naxariisatana way tahay waxaana laga rabaa inaad jeer dhaaf samayso Soomaaliduna way isku naxariisataa ganacsatada Soomaalida in badan waa la xantaa marka maanta kale kala cadaan doonta deebaydmo dawladda federaalka Soomaaliya iyo waliba dhammaan maamulada dalka ka jira oo dhan waa inay qaadaan talaabooyin badbaadin dadka ah iyo waliba ka hortag wixii karaankooda amaana Allah